arag waxbaynaan u soo sidii sanadkana ogaati qarniguna sargooyada qabatanu ku sugayay taariikhdana la socotaan haddaad samiirkii aragteen waxbaynaan u soo sideen sanadkana ogaati qarniguna sargooyada qabatanu ku sugayay taariikhdana la socotaan maydin seefta maashaan maydin seefta shaan ilaa aad samaysaan saldhiga tidhaahdaan sukay madooba sugumayno nolol wacan ilaa aad samaysaan saldhiga tidhaahdaan sukay madooba sugumayno nolol wacan ninku sugay garkuu dhigay ninku sii kuufaan nin salbeebay kaa qarig ninku siray wax kuu sheeg afrika ya seexan الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنا كوكيلة لماذا قول دولة الفدرالكا أنا كان تعسيتي رأيي لو قدر يا أمد الصوماليات ملك استي جوكتي حالة كستي كسوغنت هاي وعن لي هاي أبوان سنقب وحاو هاي تاريخ ديسا إن بدنا يا لقاها الله مركا وقت بدنا كله من ما هيو waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu tacsiyo qoyskii iyo labadii xaas uu ka tagay Ilaahay u naxariisto runtii waxa soo jiitay oo dareen aad iyo aad aan la ilmeeyay maanta ahaa markaan dhageysanayay khudbadii gabadha u dhalay iyo marwadiisa Khadiijo taariikhda iyo sida ay u hadleen iyo Soomaalinimada inta markaan ka gudbo ما أها كلية إن أبوان سنقب تاريخ دي سعودو أكتين وحاو سيجارة صاحبه لها أبا يشرتها مع يارشال ويساقا هدا دور سنة كور جيريودي وهدي لهي وانوغو بريا إن منا لماذا بوجنة كوكل ميو صاحب جارة لها ماداما عن قويسكا عن كمدها هذا سوغانتنا أردديسي عن كمدها إن مدعيا منها لتشوغي ولا نولا waxaan jeclaan lahaa dhowr arrimoodan goobjoog u ahaa iyo qaar maqaaligu ahaa intaba in aan micnaha in la wadaago haddii fursaddu micnaha ay ogolaato waa maroo sangub sida abwaanadii iyo siyaasiyiintii iga horreeyay u sheegeen waxaa weeye ma ahayn geeskan Afrika iyo nin ay ku filnayd waxaan qabaa waa ninka suurtageliyey in Afrika micnaha ay xorowdo arrimahaas dhacdooyin ku saabsan baan rabaa inaan halkan ka iraahdo waxaa xusuustayda aan ka go'ayn 1989 waxaan idin tusayaa suugaanta sangub halkay gaartay anigoo 89 waxbarasho Ingiriiska u jooga ayaa nin dhakhtaroon saaxiib ahayn oo halkan aan ka salaamayo Dr. Xuseen Macalin Mursal la yiraahdo ayaa tiiskiisa ama buugga qalin jabinta waxa uu ku soo qaatay qayb ka mid ah suugaanta sangub waxa uu soo qaatay ruwaayadii micnaha aad wada taqaaneen oo ahayd waa maadaysa dunyadu dadkuna waa matalayaan oo anigu mararka qaar siyaabo kala duwan markaan Ingiriis ku tarjumayo aan iraahdo the world is a joke and people are acting ama dhinaca kale markaan iraahdo the world is a stage and people are acting ninka ruwaayada isaga ayuu soo qaatay waxa uu tudciyadaas markuu ka soo qaatay iyo suugaan ka mid ah ayaa macallinkii ka saxayay oo la oran jiray Peter Cox ayaa waxa uu yiri suugaanta tan aad sheegayso aad la xiriirisay sangub inuu tiriyay sangub ma tirine waxa tiriyay Shakespeare nin la yiraahdo oo dhowr boqol oo sano ka hor micnaha waddanka Ingiriiska u dhashay Shakespeare-na waa suugaanyahanka adduunka Ingiriiska ku hadla
ay qadariyaan sidaa darteed imtixaankii waad ku dhacday buu yidhi oo waxaad samaysay waxa la yidhaha plagiarism ama waxaad u hibaysay hibe uusan lahayn Sangub ayaad siisay halkiibuu aniga igu soo laabtay maadaamaan xoogaa gabayaday wax ka aqiin sidaas ay ku dhacday macallinkii baan u wada tagnay macallinkii baan waxaan uga sheekaynay taariikhda Sangub inuusan weligii micnaha qurbana imaan bugaagta Shakespeare uusan aqoonay waxaanu wax isaga ka yimi inay yihiin aduu doodeer kadib halkaa ayaa micnaha buundooyinka loogu soo celiyey intaa waxaa xigay riwaayaddii haddii ilaahay ku idmahayo xorriyo ningeeya ha guursado intaan micnaha ka maqlay oo isaga laftiisu ii sheegay waxay ahayd sida abwaan dacarba u sheegahayo maanta jasuura adag baa micnaha la marin jiray riwaayadaha iyo adigu riwaayaddii si kale loo fasirtay waxa la riwaayadan waa kacadiid sidaa darteed macallinkii iyo adigu hawshiiba waa socon weysay Sangub baa loo yeeray Sangub madaxweynihii buu tagay maxamed si allah u naxariistay markaa ayuu ku yidhi Sangub ii sharax riwaayaddii buu u sharaxay markuu u sharaxayba wuxuu yidhi Sangubow anigu waan ku qanacsanahay inaad micnahaadan mucaarad ahayn laakiin dadka waad ka sarraysaa boqolaal sanaad dhaafsiisan tahay ama halka aad joogta nagee ama dadka ku soo laabo arrintaana isaga ayaa ii sheego goobjoog u ahaa intaa waxaa dheer haddaad xusuustaan 1974 waxaa lagu dhigay shirkii qaramada midoobay dhinacan Afrikada midoobay Soomaaliya xamar baa lagu dhigay kadib markii riwaayaddu dhamaatana tiyaatarkii baa riwaayad lagu dhigay Sangub waa lifay heestaada xustaana micnaha Afrikay sidaadaba saabaad xoolo leedahay markii riwaayaddii ay dhamaatay riwaayaddana waa loo tarjumayay dhammaan madaxweynayaashii yimid waxaa ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa boqorkii Hayle Salaase ee markaa dalkan xukumayay markii waxay la yaabeen mucjisada iyo ereyada ku jira baaxaddeeda iyo ninkan philosopherka oo psychologist ah qoray Hayle Salaase wuxuu yiri sida warka igu soo gaarayo riwaayadan ninka qoray jaamacadee ka bax maxamed si allah u naxariisto wuxuu yiri jaamacad ku taal Jigjiga ayuu ka baxay buu yiri marka dhacdooyinkaas waa dhacdooyinka micnaha ka warhayo oo qaar isagu ii sheegay intaa waxa dheer anigaygan qudhayda maadaama aan inta badan wax ka yiraahdo oo dawladaha iyo maamulada iyo mararka qaar iyo nidaamyadii jiray iyo mar baan maalin baan iraadar xoogaa waxaan dhibsanayaa inta sanimo koor sida wax u socdaan markaasuu yiri maandhow waxaan ka codsanayaa dawlad xun dawlad la'aan bay dhaantaa wax uun toosi mucaaradnimo micnaha kuguma ogolin wadaniyadda micnaha marka halkaa ayaad ka garan karaysaan waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waan jeclaan lahaa intii aan u soo joogay oo micnaha adeer aan la wadaagay inaan micnaha la wadaagay laakiin waqtigii iyo janaasadii annagoo dul taagan ma jeclayna intaan idhaahdo intaa markaan ka gudba mar kale waxaan salaan diiran kaga wadaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabka Muqdisho markaan garoonka ka soo baxay waa ila dardaarmeen oo waxay yiraahdeen inaanu ku aasnaan rabnaa wadaniga weyn xamar waa in la keenaa adigu dhanaaniba waayaheed waxaan goobta markaan tago baan micnaha arrintan ku soo noqon doonaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo kan aqalka sare iyo intuba salaan gaar ay idiin soo gudbinayaan aad iyo aad baad u mahadsantiin oo u mahadcelin maydin sifta maashaan maydin sifta shaan ilaad samaysaan saldhiga tidhaahdaan sukay madooba sugumayno nolol wacan ilaad samaysaan saldhiga tidhaahdaan sukay madooba sugumayno nolol wacan ninku sugay garkuu dhigay ninku sii kufaan nin salbeebay kaa qarig ninku siray wax kuu sheeg afrika ya seexan